gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee dalkani Kenya wardi khadar cayngal oo kamid ahaa maamul cusub oo jaaliyadda Somaliland ee dalkani Kenya uu u sameeyay safiirka Somaliland u fadhiya dalkani Kenya baasha cawil xaaji cumar sanadkii aanu ka soo gudubnay dabayaaqadiisii kana koobnaa guddi 7 xubnood ah oo laga soo dhex doorto gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka waan maanta kulan xog waraysiya oo kooban kula yeelanay magaalada Nairobi ayaa ugu horeyn su'aalaha aan weydiinay waxa kamid ah muddadaasi kooban ee aad joogteen maamulka jaaliyadda waxyaabihii u qabsoomay ka guddi ahaan aad iyo aad baad u maasantay Cabdullaahi booqashada iyo doonida naga soo wartay haddana nahay jaaliyadda Somaliland ee dalka Kenya runtii kooxdeedan amba xubnahan cusub waxaan ku soo beeganay waqti adag oo coronavirus saameeyay dunida oo dhan taasoo sababtay isku socodkii iyo iska wadoonidii in ay kala xirmaan alxamdulillah laakiin muddada kooban waxa noo qabsoomay waxaan oran karaynaa wax badan weeyaan muddada waxaan qabanay inaan dhameystirno xubnihii jaaliyadda sidoo kale inaan bilowno registration inaan sameeyno jaaliyadda Somaliland ee ku nool dalka Kenya waxaan sameeynay booqashooyin waxaan booqanay magaalooyin waaweyn oo kamid ah dalka Kenya sida Naivasha waxaan kula soo kulanay jaaliyadda Somaliland ee ku nool halkaas waxaan tagnay magaalada la yiraahdo Mombasa oo iyadana sidoo kale aan kula soo kulnay dad reer Somaliland oo barta degan sidoo kale waxaan tagnay magaalada la yiraahdo Nakuru waxaan tagnay Kichanda waxaan tagnay dhowr magaalooyin fara badan sidoo kale waxaan noo qorsheysnaa inaanu East Africa oo dhan soo marno aanu ka war doono dadka reer Somaliland oo ku nool deegaanadaas oo dhan sidoo kale waxaan noo qabsoomay muddadaas inaanu sameeyno constitution-kii amba sharciyadii lagu hagi lahaa jaaliyadda Somaliland constitution-kaasaan hore u jirin kaasaan bilownay dhameystirnayna oo ah buuggan hortaada ka muuqda ee maanta yaala alxamdulillah wuu dhameystiran yahay waxaan rajaynaynaa xubnaha dambe amba kooxaha dambena inay insha Allah isagu ku dhaqmi doonaan oo noqon doono constitution-ka loo noqdo magaranaysa lagu hago jaaliyadda sidoo kale waxaan sameeynay ID card aan sameeynay xubnaha guddida oo xubin walba waxaan sameeynay ID card kaasoo cadeynaya title-kiisa iyo wuxuu yahay qofka magaciisa iyo title-kiisa oran yahay sidoo kale waxaan noo qorsheysan inaanu maamul daataji sameeyno aanu si ballaadhino branchada aanu amba xafiisyada jaaliyadda oo aan ku furno Mombasa dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka Kenya marka insha Allah inta sababta noo qabsantay muddadii aanu joognay waxa kale oo gudoomiye wardi aan wax ka weydiinay guddidaasi 7 xubnood ah shaqooyinka ay kala qaabilsan yihiin iyo xilalka ay markaasi jaaliyadda u hayaan sida ku cad constitution-keega waka Chantuski halkaas ka muuqda waxay kala qaabilsan tahay waa gudoomiye ku-xigeen xoog haye madaxa abaabulka iyo wacyigelinta khasnaji madaxa arrimaha haweenka madaxa hidaha iyo dhaqanka iyo tacliinta ugu dambeynna gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee dalkani Kenya waxaan wax ka weydiinay sanduuq dhaqaale oo ka mustaqbal ahaan jaaliyaddu ay damacsan tahay inay aasaasto kaasi oo ku dabooli doono baahiyaha aasaasiga ah ee jaaliyadda Somaliland ee dalka Kenya sanduuq dhaqaale oo ay yeelato jaaliyaddu kaasoo ka iman doona xubnaha guddida iyo jaaliyadda reer Somaliland ee ku nool dalka Kenya oo iyadana magaranayay wixii taakulayna ee horumarinta aan ku qabanano ugu talagalnay sidoo kale safaaradda lafteedana iyaduna gacan bay ku yeelan doontaa oo wixii aan uga baahanay taakulayna iyadana insha Allah way ku jirtaa waxay ka mid tahay deeq-bixiyaasha aan ku tirsanahay Abdullaahi Cabdi Cali warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Somaliland magaalada Nairobi